kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo sharafta inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan ee xilli walba ay idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayahana ha idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin la maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoola socotaan ama aad u garab taagantihiin channelkaba waan idinkaga mahadcelinayaa inta dib inooga soo biirtay aad bay u mahadsan yihiin soo dhawaadan waynu idin leenahay inta hore inoola joogtay ee ah fadhiyo weynta siriicaad dadka ku dhow lahaanshaha channelka waxaan leeyahay guul cizi iyo sharaf iyo karaamo dushiina ha ahaato inta soo socotana waynu soo dhaweyn doonaa channelkana waynu gaarsiin doonaa hadduu ilaahay idmo waana u share gareyn doonaa fiidiyoogana waajibkiina ka guta la garaya siina share gareeyo asxaab badan gaarsiiya si uu u gaaro muuqaalka ay asxaab badan ugu soo xiranto channelka waan aad baad u mahadsantihiin maanta waxaan inoo wadaa muuqaal fanaankii weynaa Mursal Muuse barsamaadkiina ahaa xidigii nuurin jiray xidigaha geeska oo maanta runtii aynan wax badan ka sii dambeenin oo sida aynu ognahay waqti iska haystay dadka af Soomaaliga ku hadlo oo dhan maamulka iyo maskaxdooda mar iska qabsaday maanta waxa uu ka hadli doona ama uu ka hadlaya barnaamij oo runtii aad badan ay uga soo laabatay waa xafladii waa macnihii galmudug ayaa waxa uga timid eedeyn weyn kadib markii uu qaaday hees ee runtii macna ahaan miyaa la fahmi waayay iyo muran badan horta oo ka soo istaagay dad badan oo waxaan arkayay oo waqti xaadirkaasi ka soo hadlayay maanta oo sanad guuradii kala ay ku beegan tahayna isaga ayaa qudhiisa ka soo hadlay si yaab leh ayuuna wax noogu dhigay waxaanu doonayaa horta inaan fahno markaas oo waxa uu leeyahay intaan fahno kadibna aan wax kala baxno galmudug ninka aad buu u taageersan yahay oo uu wataa waxa uu leeyahay waxa soo wada iyo wabiga weyn hadda laakiin waxa uu marka hore idinku hormari doono iyo waxa uu idinka leeyahay iyo bal waxa uu idin wado ayaa intaba waxaan doonayaa inaan iskaga keen dhaxbaxo bal Mursal Muuse waan idin salaamay qaraabo horta reer galmudug waan hambalyeynaya waxaan leeyahay sanad guuro waxaan laakiin ni hal hees baa iga baxday oo aan baxday oo galmudug xagga dambe inkastoo ammaanka ayadoo laga amaanayay dadku wadeen galmudug ku caayeen sakala wanaagsan oo ay soo reer galmudug stay tuned diyaar laado sida aad soo wada aragteen oo dhamaantiin marqaati aad iiga noqonaysaan waxa uu raali gelin ka bixinayay heestii hore oo runtii muran badani oo ka dhashay oo galmudug oo u qaaday iyadoo heesta ee dad badani dhahayn galmudug way daalantahay miya macnaha maxaad ereyga ula jeeday maxaad daaliyay maxaase dadka qeyrkeen ah aad nooga reebaysaa oo aad u leedahay waa ay daalantahay yacni waxa uu ula jeeday markaasi meesha ay ka dhisan tahay ama gobolka in aysan markaasi hore u lahayn maamul adag oo qurux badan oo la isku haleyn karo waa sida aan u heesta aan u fahmay laakiin maanta waxa soo dhan way ka baxday oo waa ay hormartay oo nolosha qeyrkeed ay la tilaabsanaysaa ayuu fanaanka ula jeeday laakiin dad badani dhinac kale ayay u qaadeen oo waxa ay ka sameeyeen in uu cay ula jeedo ama gaf uu ugu geysanayo maamulka galmudug intaas kadibna maanta afkiisa ayuu ku soo hadlay waxa uu waliba u ballan qaaday inuu heeso kale oo aad u wanaagsan oo soo tumi doono wax walba waa ay dhacdaa raali gelintaadana kulay waan qaadanay laakiin waxaan ku dhihi lahaa mar labaad ha soo tumin hees ayna macnaheedu reer koonfur ama hadaynu nahay koonfur reer xamar ee aanan fahmi karin hay noo soo qaadin oo waxa noo soo qaadaa wax aan fahmi kareyno laakiin dhibaatadu waxa ay ka taagan tahay abwaanka diyaarinaya ay ku xiran tahay haddii oo abwaan aan fahmi weyno oo diyaariyo ama luqadda isku fahmi weynana waxa dhici karto in aan heesta macna ahaanba meel kale aan u rarno markaasi aysan iyada ahayn haddii aad soo daba dhigaysa fasiraad aanu ma sheegin waa ku qaadanaynaa markaas laakiin haddii aadan fasiraad soo daba dhigeen waxaan ku dhiilaa soo jilci si aan u fahanno aad baad u mahadsan tahay fanaanka inta badan runtii waa qof qalbi wanaagsan inta aan anigu aqoon ahaan aan u leeyahay ama aan ka ogsoonahay waa fanaanka kaliya dagaaladii ay ku socdeen amaba xilli adag soo galay amaba muran iyo isqaqabsi dheer soo galay haddana ka soo dabaashay oo aan yacni aan wax weyn u soo arkin fanaanka waan ogeyn dhamaanteen waan ka warhaynay in ay dagaalo adag ay ku socdeen mar walow dagaaladaasi qaar ay dadkaba ay ku eedeynayeen inuu asaga aabba u ahaa in la weeraro oo waqti xaadirkaasi oo dagaalka intaas in la eg u gaaro waa xagga guurkiisa dad badan waxa ay leeyihiinba waxa ay yacni waqtigaasi lagu sameeyay ama lagu weeraray waxa ay ahayd wax uu mudan yahay laakiin qof ma jiro
wax mudan bila aadamkana ogaada wax walba ilaahay waqti oo ugu talagalay ay leeyihiin waqti xaadirkaasna way dhamaanayaan waxaana markaas dhacayay ama dhacdada waqtigaas taagneed waxa ay ahayd nooca ay u dhaceysay ayuu ilaahay ugu talagalay waa inuu u dhacday sida ay noqonaysana waa ay noqotay maanta fanaanka heerka uu ku sugan yahay iyo nolosha uu ku sugan yahayna waa nolosha uu mudan yahay maanta inuu ku noolaado run ahaantii malihi bila aadam khaldamay karo ma jiro adduunyada qof dhihi karaana ma lahan xitaa haddii aan qalad u aragno waqti xaadirkaas qaladkiisa waa uu saxay ta kale marka ay fanaanka ku amaani karaan waxa ay tahay in uu inta badan inta la haystay inta uu soo jawaabayay waxa ay ahayd tusaale ahaan markii 100 fiidyo laga sameeyo ayuu fiidyo qura intuu soo xanuujiyo kadibna uu yani ka soo hadlaya amaba uu wax ka dhahayo laakiin inta ugu badan waa la weerarayay isaga waqti xaadirka fanaanku oo iska aamusnaa waxa jirtay laakiin waxyaabo badan oo shaki dhaliya anigu qodheeda xitaa janal ahaan aan ka hadalnay laakiin waqtigaas la yaab nagu ahayd waxyaabo fajac leh oo waxaan oo aan aragnay boorsamiinda film aan hore u daawanay boorsamiindadiisa ayaan dib u aragnay marka taas ayaa shaki ina gelisay oo mar labaadna markaas ay dadka hadlay waqti xaadirkaasi u hadleen si aysan u dhicin dhibaatadii shalay dhacday ama eedeyntii shalay fanaanka lagu haystay oo kale boorsamiindadaasna waxa ay ahayd guurkiisa dambe sida oo waa la wada ogaa mar dambe waxa soo baxday Xamdi Bilan oo soo gashay qadka oo dad badani ay runtii calaamad su'aal dul dhigeen markay heesna jireen kala yeelatay midna ay la qaaday waqti xaadirkaasina dad badan ayaa ka soo hadlay oo looma kala harin waqtigaasna waxa la sheegay inay jacayl isku hayaan labada fanaan oo runtii ama ay tahay bilowgii nolol ay doonayaan inay ka mara dhaliyaan sidaas darteed markay hawsha adkaatay labadaba way ka soo hadleen oo iyadana way ka soo hadashay Xamdi Bilan isagana waa uu ka soo hadlay waxa ay sheegeen walaala inay yihiin walow waqti xaadirkaasi ay dadka qaar aad ugu qancin maadaama ay heesaha markaas ay qaadayeen mirihiisu ay wax ku jireen taasi ayaa keentay marka inay dadka shaki dul dhigaan oo ay dhahan wili maanan qancin ee waxa ku qanci karno ama kuga aamini karno mursal oo la kaalay wax kasto ay ahaataba maanta arrinka ugu weyn ee fanaanka uu ka hadlayay waxa ay ahayd heesta uu galmudug oo uu sameeyay oo dad badani ay afkaar ahaan ama fikir ahaan ay laba yani ay nooc kale oo la noqotay sidaas darteedna ay markiiba u sheegeen waxa ay la tahay iyo waxa ay iyaga doonayaan ama waxa ay ka aaminsan yihiin heesta inay tahay kadibna waqtigaas ma uu soo jawaabin laakiin maanta ay ku beegan tahay amaba lagu guda jiro sanad guuradii galmudug ayuu waxa uu u soo hadlay kadibna uu u ballan qaaday inuu heeso u sameyn doono heesahaasina ay noqon doonaan kuwa ay iyaga ku qanci doonaan haddii dhacdo waxaan leeyahay reer galmudug oo cimaamad waa idin saaray odayga waa uu ka soo woona idin sheegay in horay si yaro faham qaldan laga qaatay laakiin maanta mar labaad ayaan jaanis siinayna haddii aynu nahay reer galmudug mar labaad ayaan jaanis siinayna waxaan ku leenahay mursalow waan eegi doonaa oo waqti ayaan ku gelin doonaa heesta aad u soo qaadid amaba heesaha aad ballan qaaday inaad u soo qaadi doonto galmudug xilligii aan u soo qaadidna waa arki doonaa sida ay noqdaanna waa arki doonaa waxaan rajaynaynaa in aan heli doono kuwa aan ku qanacno aadna u mahadsantiin reer sariicaad meel walba caalamka ka joogta iyo wax kasto idin la tahay waxaan rajaynayaa inuu waqtiga idin wacnaado insha Allah inta aan muuqaalkan mid xiga ku kulmi doona ama ka duwanna waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah